بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته walaalahayga qaaliga ah waan idin salaamay meel walba adduunka daafiisa aad ka joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka sidaad u dhantihiin waxaan idin rajeynayaa kheyr iyo caafimaad taama insha allah kusoo dhawaada channelkeena cooking with xayaad waa walaashin xayaad oo mar kale kulanti wanaagsan soo dhawaada insha allah maanta waxaan idinla sheer gareynayaa casariyo yar oo aad u fudud misana u macaan caruurtana aad u jeceshahay insha allah usamey galbihii sidoo kale dadka waaweynna waa u sameyn kartaa insha allah marka axbaabi waxa waaye keeg aad u macaan insha allah ama doorsho aad basaad u taqaanid insha allah sida aad u jeedaan waana ka heli doontaan sida aan rajeynayo fadlan haddaa igu cusub tahay nagu soo biir marka hore haddaa videogan ka heshidna please share iyo thumbs up biidnillah markii aan dhameeyo keegi sidan ayuu inoogu soo baxay quruxda badan aadkana u macaan insha allah marka haddana anaa idin dhadhaminayo walaalahayga qaaliga waa ujeedaan maasha allah quruxdiisa ayaaba ku cajabinaysa inta aadan yacni dhadhaminba marka dhanka tastigana waa aniga insha allah bismillah haddana waan sameysanayna insha allah bismillah awalan kula shay waxyaabaha aan ka sameynayana asxaabteeda qaaliga ah halkan ayay idinkaga muuqdaan waad aragtaan marka hore waxaad u baahan tahay baaquli weyn iyo yacni bahalka yar ee lagu qaso keega haddii aa mashiin haysatidna mashiinka ayaa ku qasan kartaa insha allah marka hadda ukuntii ama beedkii ayaan ku ridanaya insha allah inta xaba aan ku ridan doono ila soco maasha allah haddii aad rabtid keeg jilicsan ukunta inaad ku badsatid ayaa wanaagsan biidnillah si uu yacni doorshaha kuugu soo baxo doorsho softi ah oo aadna u macaan biidnillah marka axbaabi hadda 3 xabo ayaan ku riday oo beed ama ukun ah haddana xabadii afaraad ayaan ku ridanayaa sida aad aragtaan maasha allah soo marka 4 xabo ayaan isticmaalayaa maadaama aniga hadda keeg badan aanan sameyneynin insha allah waa wax yar inta aan sameynayo qiyaastan waa ila socon doontaan inta waxyaabood ee aan u baahanahay iyo sida aan u qasi doono step by step insha allah hadda ukuntii ayaan walaaqaneynaa ama aan yacni isdhexgelineynaa si ay inoo maasha allah si fiican ayaad u qaseysaa asxaabteeda qaaliga ah ukunta markii aa qastidna biidnillah waxaa ku darsanaysaa sonkorti sonkorta waxa waaye cabirka bakeeriga hadda saliidda iigu jiro halkaa yaalo cabirkiisa weeyaan hadda inta baaquliga iigu jirto insha allah haddii aad yacni bakeeriga haysatid bakeeriga ayaa ku cabiran kartaa baaquligan yar iyo bakeeriga waa isku cabir insha allah marka sidaa ila socdo asxaabteeda qaaliga ah marka sonkorta ayaan ku walaaqayaa si wanaagsan maasha allah maadaama sonkorta aysan budo ahayn ee tahay tii caadiga ah in ay milanto ayaan rabaa insha allah ukunta iyo sonkorta ayaad isku mileysaa ama aad isku walaaqeysaa hadba sidaad u garanaysid ama aad u fahmaysid afka soomaaliga insha allah soo marka haddana inti kale ee ii hartay ayaan ku darsanayaa sonkorta hal mar kuma wada daraysid insha allah waad kala qaybsanaysaa marka horena nus ayaa ku dareysaa insha allah marka dambena nus ayaa ku dareysaa markaa nuskii hore ku walaaqdid ayaad nuska dambena ku darsanaysaa walaalahayga qaaliga ah insha allah sidaa ila socda hadda waxaan ku darsanaya waa saliidda cuntada haddii aad subag haysatid waad isticmaali kareysaa insha allah ama blueban nooc walba subag uu yahay subaga xoolaha kan margarina la dhaho ama better insha allah wixii markaa gurigaaga yaalo oo aad haysatid ayaa isticmaaleysaa soo marka aniga hadda subagii ma yaalo waxaan isticmaalayaa saliid insha allah aniga mar walbo subaga butterka ayaan ku sameystaa keega
soo marka batarka hadda uu iga dhamaaday soo marka saliid ayaan isticmaalayaa asxaabteeda sidaa ila socda wax waliba oo ay haysatid ayaad ku sameysan kartaa insha Allah jooska waa adiga dhankaaga marka hadda si fiican ayaan isugu milayaa sonkortii ukuntii afarta xabo ahayd iyo saliidii insha Allah intaas ayaan isku walaaqayaa walaalahayga sida aad aragtaan ama aad u jeedaan si wanaagsan ayaan isu dhexgelinayaa intaaba kadibna waxaan ku darsaday waxa waaye baking powder iyo wax yar oo baking soda ah oo aad u yar insha Allah oo aan isku soo dhex darsaday intaa dabadeedna waxaan ku darsan doonaa insha Allah vanilla powder ama vanilla powder waa carfisa insha Allah furka ayaan ku qiyaasay soo marka sida aad aragtaan waan ku daray kadibna waan isku walaaqi doonaa biidnillah si fiican ayaan isugu walaaqayaa intaas inta aanan burka ku darin insha Allah kadib wax yar oo milix ah ayaan ku darsaday ama cusbo hadba saad u taqaanid insha Allah kadibna markii aan cusbadii aan ku daray kadib intaa waa isku walaaqaynaa si wanaagsan insha Allah saliidii kuma wada darin ila socda haaf ayaan reebay insha Allah haafkaana gadaal ayaan ka isticmaali doonaa insha Allah weli waan walaaqayaa walaalahayga qaaliga sidaad aragtaan waayo waxaan rabaa inuu si wanaagsan isu dhex galo mukawinaadkii aan isku dardaray ama alaabihii aan isku dardaray inay isku milmaan ayaa la rabaa si wanaagsan isugu milmaan insha Allah intaa dabadeed waxaan ku darsanayaa daqiiqdii ama burkii hadba yacni sidaad u taqaanid insha Allah burka in yar ayaan ugu darayaa oo yacni kuma wada daraayo hal mar kuma wada daraayo insha Allah oo gab kuma wada siinaye waad ila soconeysaan waana aragtaan sida aan ugu daraayo kiskis ayaan ugu darsanayaa walaalahayga sharafta leh insha Allah waayo waxaan rabaa inay si fiican isu dhex galaan alaabaha step by step insha Allah wax walba marka yacni aad sameynaysidna waxaa wanaagsan inaad yacni si degan oo yacni tartiib ah aad u sameysid insha Allah marka midna ogow haddii aad rabtid doorshahaaga inuu jilicsanaado waa inaad burka ka yareysid insha Allah iyo sidoo kale bakingtana waa inaad ku yareysid waayo labada haddii aad ku badisid wuu ka adkaanayaa qalaf ayuuna ka noqonayaa oo yacni adeeg ah laakiin haddii aad burka ku yareysid oo yacni qoyaankana aad ku badsatid maasha Allah keega jileec iyo softi ayuu ku iyo qurux maasha Allah haddana waxaan ku darsaday sida aad aragtaan walaalahayga qaaliga ah intii ii hartay saliidda ayaan ku darsaday ama ii harsaneed insha Allah marka waa isku walaaqayaa iyadana si wanaagsan maasha Allah waayo waxaa rabaa keegayga maadaama yacni ilmana ila cunayaan maasha Allah oo dad waaweyn kaligeed ama dad waaweyn kaligood aysan ahayn inaan yacni jileecaan ka dhigo wax ilmaha cuni karaana aan u sameeyo insha Allah marka walaalahayga beri haddii aad yacni rabtid doorshahaaga inuu safti kuu noqdo yacni burkana ku yarey qoyaankana ku badi insha Allah oo yacni isku dheelitiro insha Allah marka aniga hadda burka intaa ma wada isticmaalayo qiyaas ahaan waa 2 bakeeri oo bakeeriga shaaha lagu cabo ah ama kan saliidda hadda iigu jirtay burka waa kaa labadiisa baaquliga kaa ayuu qaadaa marka insha Allah labadaa ma wada qasaayo ahaan hadda inta aan qasay ama aan qasi rabo waxa waaye waa iyo half ama bakeeri iyo bakeeri nuski insha Allah waa intaa walaalahayga sharafta leh soo marka hadda si wanaagsan ayaan isu dhexgeliyey ama aan yacni u walaaqay insha Allah
haddana kis yar ayaan ku darsaday oo daqiiqdii ah insha allah walaalahayg sidaad u jeedaan waan ku walaaqayaa si wanaagsan. sorry dhuunta ayaa yar xiran oo xabeeb ayaa marmar i qabanaysaa marka waan walaaqayaa si fiican sida aad u jeedaan. si wanaagsan ayaan isku dhex gelinayaa ama aan u walaaqayaa insha allah. burka lama isticmaali doono intaa oo kaliya ayaan yani ku ekaanayaa insha allah. intaana waa iska reebayaa waayo waxaan rabaa keega inuu jileeci ahaado oo keeg adag ma doonayo. marka insha allah ila socdo walaalahayga qaaliga ah. intaa kadib insha allah waxaan soo qaatay walaalahayga qaaliga saxankii afoornada ku gelin lahaa biidnillah. dabadeedna saliid ayaa marmarsanayaa si uusan igaaga dhegin doorshaha xagga hoose. saliid yar ayaan marsaday. haddii aad subag haysatid waa marsan kartaa wax alla wixii aad haysatid oo jikadaada yaalo ama kaad marsanaysaa biidnillah adigoo yacni isdhibin. marka saliidda ayaan geesaha dhan ka wada marinayaa. sida aad u jeedaan insha allah si fiican ayaan u wada marinayaa. markaa mariyana waxaan kusoo shubayaa insha allah keegaygii ii diyaarsanaa aan soo qasayay hadda. diyaar waa hadda saad u jeedaan waan kusoo shubanayaa. siduu u jilicsan yahay waa aragtaan walaalahayga qaaliga ah. hadhowna siduu kusoo baxo waa ila arki doontaan hadduu rabbiga awooda leh uu saamaxo insha allah. soo marka keega markii aad sameysanaysid weel fidsan ayaa ku wanaagsan inaad ku samaysatid maasha allah si uu dhaqsaba yacni kuugu bislaado uusan kaaga huurin insha allah. teeda kalena keega yacni inuu bislaaday in kalena waxaa ku ogaan kartaa yacni markii uu yacni bislaado ayaad yacni qori yar ama yacni istakiin yar wixii aa haysatid ama xabad baasto ayaa dhexda ka gelinaysaa. haddii ay qalalan tahay keegaaga waa diyaar. haddiise yacni uu qoyan yahay ama qoyaan uu soo raaco keegaaga weli waaye waxbaa u dhiman insha allah. marka sidaa ayaad ku ogaan kartaa walaalahayga qaaliga ah. sidaa ila socda ovenka ayaan gelinayaa ama foornada insha allah 30 daqiiqo iyo 160 ayaan ku duwayaa. ila socda wanaagsan walaalahayga aan jeclahay biidnillaahi ilkariim. waan isku soo laabaneynaa markuu soo bislaado hadduu rabbiga awooda leh uu inoo saamaxo insha allah. asxaabteeda qaaliga ah keega waa inoo diyaar. waan kasoo saaray ofinka haddana waan soo jarjaranayaa insha allah. ila socda walaalahayga axbaabi keegi waan soo jarjaray sida aad aragtaan. waan soo kala qeybiyey dhowr qeybood oo yaryar ayaan kasoo dhigtay sida aad u jeedaan maasha allah. 2 saxan oo yaryar ayaan usoo kala qeybiyey. marka waan idin tusayaa xagga hoose iyo xagga sare siduu noqday maasha allah si aad indhihiina ku aragtaan. waad u jeedaan waa casaan ama waa guduud labada dhinac maasha allah. aadna wuu u jilcan yahay asxaabteeda qaaliga ah. waxaan rajeynayaa inaad soo tijaabin doontaan biidnillah iskuna dayi doontaan hadduu rabbiga awooda leh inoo saamaxo insha allah. sida u jilcan yahayna waad u jeedaan maasha allah. sponge waaye. marka walaalahayga qaaliga ah waan soo diyaarsaneynaa. ila socda insha allah. waxaan haysanaa ama aan kusoo diyaarin doonaa labada nooc ee sirabka ah waa chocolate syrup iyo strawberry syrup insha allah. kani waa strawberry aan hadda hayo. sidoo kale qumbaha xoqan ee budada ah ayaan u baahanahay insha allah.
hadda qeybtan ayaan yacni chocolatekii ku yacni sharaxay kadibna waxaan ku shubayaa qumbihii. qeybtii strawberry-gana waa tanaa, strawberry-gii ayaan yacni decoration-ka ugu sameynayaa insha Allah sida aad aragtaan. kadibna qumbihii ayaan korka uga sii daadsaneynaa walaalaheyga ila socda insha Allah. sidoo aad aragtaan aad ayuu macaan badan yahay. soo sameeyo, soo tijaabiyo insha Allah. ciyaalka ha loo sameeyo, sidoo kale martida ha loo sameeyo insha Allah. xaajiga dhammaan familka ha loo wada sameeyo. asxaabteeda qaaliga ah casariyaha galbihii reerka ka farxi insha Allah. waxyaabo yaryar u sameey si lagugu duceeyo insha Allah. haddana qumbihii ayaan ku ugu dambeyn markii aan dhameeyay walaalaheyga qaaliga ah sida ayuu kusoo baxay keegi maanta ama video clipkii aan idinla sheer gareynayay casariyihii ahaa. maasha Allah, casariyahan inaba caadi maahan oo aad ayuu u macaan badaya maasha Allah. caruurtana way ka heshay. waxaan rajeynayaa idinkana inaad u sameyn doontaan familigoo dhan, xaajiga, qaraabada, martida iyo caruurta insha Allah. casariye inaad uga dhigtaan oo aad ka farxisaan galbihii, waxyaabo yaryar u sameysaan insha Allah si la idinkugu duceeyo biidnillah. marka asxaabteeda qaaliga ah please haddii aad videogan ka hesheen like ii saara insha Allah. haddaa igu cusub tahayna igu soo biiro subscribe noo saar channelka. haddaa hore noola sii joogtana mar labaad iyo mar saddexaadba ii soo dhawaada insha Allah. aad ayaan idinkugu xiisay idinkoo idilna dhammaantiinaba waxaan idin jeclahay dar Allah insha Allah. asxaabteeda qaaliga ah biidnillah mar walba waxaan jeclahay in aan idinla wadaago fiidiyooyo yaryar oo aad u qurux badan misane faa'iido leh insha Allah. hadday tahay cunto karin, guri qurxis ama hagaajin, nadaafad insha Allah, isqurxinta jirka insha Allah. marka asxaabteeda haddana waxaan idinku dhaafayaa salaanta islaamka. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. fi amaan.